diinta afraad sheekhana waxay leedahay waxay furay ninkaygii wuxuuna igu furay hal dalqo waxaan ku ciddo tirsanayay gurigayga isaguna guriga waa uu ka maqnaa markii hal caado ay igu dhacday ayuu maalin salaan ahaan igu yimi kadib waxaan isku aragnay gogosha wuuna iga tegey anna waxaan maqlay ninka xaaska oo ciddada ku jirta haddii ay kulmaan inay la mid tahay sidii isagoo soo ceshaday oo kale markaa sheekh waxaan ku weydiinayaa kow arrintii aan maqlay ee kulanka in ay ku xidhan tahay inay la mid tahay rajci la soo ceshaday gabadhii ma ninka niyadiisa ayaa loo eegayaa mise niyadiisa kuma xidhna laba haddii niyadiisa aysan ku xidhnayn soo celiska oo aanay rajciso aanay ahayn soo celin aanay ahayn dembi miyaa ka dhalanaya kulankaas maadaama laba dhiig ay ii hadhsanaayeen maxaan yeelayaa ma labadii ii dhinnaa uun baan sii dhammaystirayaa mise dib baan u soo bilaabayaa haddii kulankaa cunug uu ku calool galay isagana muxuu xukunkiisu noqonayaa waa 4 su'aalood oo hal dhacda ah ka dhalan kara 4 su'aalood koobaadi waxa weeye gabadhii iyadoo ciddada ku jirta ninkii furay oo u yimid oo u galmooday hadhowna markii ay weydiisay ku yidhi muxuu ahay niye igama ahayn sidaasi ma ku soo noqonaysaa mise kuma soo noqonayso haddii si kale loo dhigo soo ceshigu dumarka ciddada ku jira la soo ceshado ma fal buu ku xasilaa iyo ficil mise hadal buu ku xasilaa iyo waan soo ceshaday mid waa la isku waafaqsan yahay hadduu yidhaahdo waan soo ceshaday oo ku dhawaaqo waa soo ceshi taasi laakiin isagoon ku dhawaaqin waan soo ceshaday hadduu galmo sameeyo waa ficil galmadaasi soo ceshi miyay ka dhigan tahay mise kama dhignaa 3 madhabood baa ku jira culimmadu qabaan mid waxay leeyihiin ama ha niyoodo ama yuusan niyoonin marba hadduu u galmoodo waa soo ceshi waa madhabka xanafiyada iyo xanaabilada weliba xanafiyadu iyagu waaba ka sii dareena wuxuy dhaheen hadduu xataa dhunkado ama taataabto ama xubinkeeda taranka fiiriyo shahwana u fiiriyo waaba soo ceshi bay dhaheen ilaahu muusan niyoonin hadduu rabo laakiin xanaabiladu iyagu waxay dhaheen hadduu galmoodo xataa yuusan niyeysaninba madhabka kaa ka soo horjeeda waa madhabka shaaficiyadu waxay qabaan sideedaba ficil iyo fal soo ceshi kuma dhaco ama ha niyeysto ama yuusan niyeysanin imaam shaafici iyo asxaabtiisiina halkaasay mareen madhabka saddexaad waxa weeye falkan uu sameeyey galmada ah hadday niyo la socotay soo ceshi ah waa soo ceshi haddaysan niyo la soconinna soo ceshi maaha waana madhabka maalikiyada iyo riwaaya can imaam axmed madhabkaas baana xoog badan leanna falka iyo ficilku laba ujeeddaba wuu yeelan karaa ixtimaal mid waa ixtimaali karaayoo ninkan islaantii uu qabi jiray wada seexan jiren isaga yimid inuu isaga simbirrixday oo uu hawshiisa ka qabsaday isagoo soo ceshi iyo dantaa lahayn waa suurtagal kaa wuu ixtimaali karaa inuu soo ceshi ula jeeday galmadana waa suurtagal ficilku hadduu ixtimaal galo ama hadalka laba macno ixtimaali karana niyaa kala saarta niyada ruuxa ayaa kala saartoo dhinac xoojisa marka ficilku soo ceshi sariix kuma ah adillo ku tusaysoo cadna ma jirto ficilku inuu soo ceshi yahay maadaama uu ixtimaali karayo waa in marka niyo la helo waayo haddii niyo aan la helin oo markuu galmoonayay uusan ku galmoonin soo cesho oo isaga galmooday
sida xooga badan markaasi soo ceshi maaha waa qalad dhacay buu dhahay asagii hadduuba qirsan yahayba inuusan niyad lahayn oo soo ceshi uusan lahayn bimacneedu waxa weeyaan galmo khalad ku dhacday waaye soo ceshina maaha sidaasaa xoog badan masaladuna khilaafiye waaye su-aasha labaad ee qodobkaa ka dhalatay waxa weeye miyaan dembaabnay jawaabteedu waxa weeye isaga niyad la-aanta kugu galmooday wuu dembaabay toobadkeen baana laga rabaa laakiin haddii ay noqoto masi ruux sinaystay oo kalaa loola dhaqmayaa maya waaye oo shubha la yidhahdaa galmo shubha waaye xoogaa maadaama islaantiisi ay ahayd islaanta iyo ninka kala tegey hadday ciddada uu ku soo ceshan karo ku jirtana inay ag joogjoogto isla joogjoogaan baaba la rabaaba shareecada oo weliba ay isu qurqurxiso oo ay muxuu ahaay indha saraxaadiso suu u soo ceshado ilaa wixii waxaa la rabaa reerka inuu isku soo noqdo marka muxuu ahaayey la dhihi mahayo sidii zino oo kale ha loola dhaqmo laakiin waa nikaax shubha shubhadaasi waxay meesha ka saaraysaa xaddii ka dhalan lahayd galmada khaladka laakiin dembi way tahay waa inuu toobad keeno waay iyada gabadha dembiyada ma raacaya hadday moodaysay inuu ugu galmoonayo soo ceshi waa sida hadalkeeda ku jira waay iyadu dembi male sababtu waxay tahay waxay moodaysay inuu yahay ninkeedii oo falkan ula jeeda inuu soo ceshanayo niyadiisana mayna ogeyn hadday sidaa islahayd dee ninkeedii u galmooday oo kale laga soo qaadayaayo ayada dembi raaci maayo dhankeeda wax dembiya ma raacay su-aasha saddexaad ee arrintaa ka dhalatay waxa weeye ciddadii ay waday laba cidday soo martay miya laba cidday laba dhiig bay tirsatay hal dhiig baa u laabnaa mid bay soo martay labaa u laabnay soo maa galmaa dhacday ma ciddadii haddana miyay bilaabi mise tii hore intii uga laabnayd unbay dhammaystiri meesha fuqahada qaarkood ay dhahaan tadaakhul ciddaad wax mushkila amal isagii un hadduu yahay leanna waxba isbedeli maayaan hadduu ilmo yimaadana kii hore hadduu ilmo uurka kusii jiray uu yahay iyo hadduu hadda uur galay toona labadaba un ilmihiisii waa hadduu nin kale meesha soo geli lahaa waxaa la dhihi lahaa ciddadii horena kii horena ciddadiisii dhammaystir oo labadii laabnaa dhammaystir tu cusub oo kalena haddana samee laakiin waa isla isagii ciddadeedii unbay dhammaystiranaysaa hore taana waa sidaas wa su-aasha afraadi waxa weeye ilmaha hadduu ilmo uur galo oo galmadaa khaladkaa ilmo ku uur galo ilmahaas iyuu ku abtirsanayaa ma garacbaa mise ninkiibaa loogu abtirinayaa jawaabtu waxa weeye ninkaa loogu abtirinayaa waana ilmo sharciya waa culimaduna intaa waa isla ogolyihiin sababtu waxay leeyihiin galmadu waxay ahayd galmo shubho zina ma ahayn ilmahana sidiisaba waxaa nasab loogu sameeyaa ansaabta in loo sugo bini aadamka shareecadu way ku dadaashaa wax yar haddii loo heli karo oo nasab lagu siin karayo aabii loogu abtirin karayo waa lagu siinaya wax yar xataa baynamaa ilmaha inuu nasabkiisii waayo oo loo diido ay shareecadu aada u adkaysay hal arrin keliyuu ku waayi karaa arrintuu ku waayi karo waxa weeye inuu kii dhalay ee xadhigga ku dhalay maxkamad sharciya tago lecaantamo 5 dhaarood maxkamada horteeda ka maro inuusan ilmahan dhalin taasuu ku waayi karaa ilaa heer waxay shareecadu gaadhay xataa xaaskaagii ilaahay naguma keene xaaskaagii ood qabtay haddii nin kaleeto kuu dabamaro oo ilmo uur galo ilmihii adigana uu kaa suuroobi karo isagana ka suuroobi karo adaa iska leh alwaladu lilfiraashi walilcaahiri alxajar ilmaha gogoshaa iska leh ninkan gogosha leh islaanta qababaa ilmaha leh ninkan kaimaadka ahee soo duulayna dhagax baa lagu dili isagu ilmo uu qaatay iska dhaafa dhagax buu leeyahay
marka wax yar baa loo raadinayaa ilmaha in nasab loo sugo bal waxay